cabdishakuur axmed maxamuud ayaa loo haystaa dilka xasan maxamed shire oo ay ka wada tirsanaayeen booliiska iga leexaniyo wuu soo booday qoragii hal mar iga qaatay qorqorgaan maliheeda keenan ku iri qoragii waa isla qabsanay markaan isla qabsanay waxaa haddana soo orday cabdikaafi cabdi xirsi oo ahaay askarigii qoraga lahaa wuu nagula sii dhigay qoragii xabadaha ka fakada saasaa wax u dhaceen wax ku dhintana ma ogeyn anugu waa kaa dilka ayaa ka dhacay degmada Waabari 31 bishii ina dhaaftay maragadii goobjooga oo ahaa dhacdadan waxay maxkamadda ka qirayaan inuusan jirin muran u dhaxeeya marxuumka iyo eedeysanaha maxkamadda hortaagan anigoo taagan waxaan arkay ninkan oo qori iyo boosh guri halkaas kala soo baxay xageena soo socdo halkaas fadhiistay miisaan noo dhahay kuraas miiska ka dambeeyay oo ku fadhiistay markii wuxuu yiri ana waxaan dhahay saxaabo maxaa laga helay qorigina baas saaray markii qorig baas saaray waxaan dhahay saxaabo maxaa laga helay adiga fasaxatay hortayda ka wariga u dhahay waa fiirshay inuu xanaaqsan yahay arkay ragaa meesha iga soo horeeyay saddex wiil oo meesha tagan iga soo horeeyay labana waa fadhiyaan halna waa tagan waxaan dhahay ragga xaggooda waxaan laba talaabo qaaday waxaan dhahay inuu dhaho tiri raggan ninkan maxaa laga helay anoo dhihi rabo dhasha maqlay dhashta ninkan la hadlay aniga waxaan maleynaa aniga badda madaxa igu kudibtaa oo qoy saana u jeestay waxaan arkay xasan iyo ninkan oo miisna u dhaxeeyo ninkan ku hayo ninkan qoray dhuuntiisa haysto xaggiisa aadi maaqay toortoorka basha dhamagta marka hore waa kadibtay aadi markii dambe u cabeystay xabadihii markii dhacana gadaal ugu rahay waan gadaal ugu baxay marka intii ay maxkamadda socota waxaa halkan lagu dhageystay sooyaalka eedeysanaha oo ku suntan wax walba oo khariban sida dil iyo kufsi xitaa xatooyo xoolo dadweyne baaraha kiiska wakiilka hay'adda dambibaarista booliiska CID ayaa maxkamadda ka hor cadeeyay in eedeysana cabdishakuur axmed maxamuud uu bareer u dilay marxuum xasan maxamed shire xafiiska xeerlaalinta ayaa gabagabadii maxkamadda ka codsaday in laga mago dambigii uu galay sida gunaanadka ee israacsadeen xeerlaaliyaha iyo ku xigeenkiisa maxamed cabdullaahi khaliif iyo jenaraal cabdullaahi buula kami oo ula kaca ayuu baas ku dhuftay arinta iyada waa arin kas baaritaan dheer kadib waxaa cadaatay inaysan jirin wax waaliya inaysan jirin wax xanuuna maxaa yeelay hadduu waalnaan lahaa markuu dilay ma uusan fakadan goobtiisuu joogi lahaa mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafka leh eedeysanuhu wuxuu ku xadgudbay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida nin buu toorey ku dhuftay kadib uu ogaaday mas'uulku xilligaas uu soo noqday oo ciidanka gurmadka ka qayb galayay ilaa dagaal baa loo socday shabaab lagu dagaalamay wixii la heli karo waa la qaanay xildhibaanku sidaa uma ogeyn markii hore dib buu markii uu dilka geystay baaritaan ka sameeyay waa kan maxkamadda horteeda ka sheegay xamar buu yimi haddana dhaawac kale kii hore ceelbuur baa lagu bixiyay kii dambe haddana xamar buu nin kale haddana toorey ku dhuftay tan waa tii afraad dilka uu geysanayo maadaama sidaas darteed uu yahay nin khatar ku ah ummadda nolosheeda oo cid uu la noolaanayo la arkin meeshii la geeyna uu dil iyo dhibaato iyo dhaawac geysanayo waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in ay ku xukunto ciqaabta u qalanto oo ah dil toogasho ah qareenka ayaa isna la saftay wakiilkiisa eediisa markii loo jeediyay eedan la jeediyay doodan ka qaba uu ku doodayo inuu yahay nin xanuunsan maadaama marqaatiga maxkamadda horteeda la keenay ay sheegeen ninkan iyo marxuumka dhimanayo wax dood oo dhex maray ama dagaal ma jirin ay leeyihiin ma jirto marka sabab uu si bareer u dili karo mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta maadaama marqaati cadeyn la waayay inuu kiiskaasi si bareer u dhacay maadaama eedeysanuhu uu sheeganayo inuu xanuun qabo xagga maskaxda xilliga falkaas uu dhacayna uusan mir qabin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa kow marka hore in baaris lagu sameeyo arintan caafimaadka marka labaadna maxkamadda go'aanka iyada u diinaa wax uga soo baxay shuura iyo wada tashi dheer oo ay garsoorka qaateen kadib waxaa go'aanka maxkamadda isla fadhigan kaga dhawaaqay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida wada tashiga garsoorayaasha kadib
maxkamaddu markay aragtay qiraalka looga qoray maxkamadda horteeda eedeysane cabdishakuur axmed maxamuud uu ku cadeeyay in uu sababsaday marxuumka gacantiisa maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiga la hor keenay midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda u cadeeyeen in eedeysane cabdishakuur axmed maxamuud uu si bareer ah u dilay marxuum xasan maxamed shire markay dhageysatay maxkamaddu baaraha kiiska oo maxkamadda ka hor sheegay in ay u soo baxday in eedeysanaha uu si kas ah u dilay marxuumka markii ay dhageysatay dooda dhinacyada xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha haddaba maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane cabdishakuur axmed maxamuud uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum xasan maxamed shire maxkamadda ayaana soo saarayso xukun jideeyaha la xiriira kiiska iyo habraacyadiisa wabilaahi towfiiq maxkamadduna way noo xiran tahay xukunsanaha iyo marxuumka oo ay sii kala matalaan xildhibaan yuusuf geelowgaas iyo senatar cabdixakiim macalin axmed ayaa xukunka kadib warbaahinta la hadlay bismillaah runtii maxkamadda goobjooganka in wixii meesha ka dhacay ilaahay fadligii aadan ugu qanacsanna wixii halkaa ka dhacay waxaana meeshaas ka dhaca xukun cadaalada runtii waajib weeye askari dila in la dilo madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in maalin dhoweedaan fiirsanayay dhacdooyin sidaas kale u dhacday oo afar askari oo kala dishay lagu tooganayo marka taas goobjoog kama ahayn laakiin ilaahay fadligii maanta goobjoogan ka ahayn runtii waxayna u dhacday maxkamaddaas si aan cadaalada oo dalka iyo dadkaba anfacay aan isleeyahay maanta ka bacdi ninkii nin dila saas dil loo dilana inay meel fiican ku dhammaan doonto marka dhacdadan uu ninkan ku dhintay ilaahay ha u naxariisto oo yarkan gacantiisa uu ku baxay maantana dee maxkamaddii ayaa u garatay in isagana la mariyo dariiqii oo kaleeto waana dee taa ilaahay uu ka hadlayo oo qofka ibni aadanka dembiga uu galo in laga oofiyo oo laga gudaayo waxa weeyaan isagay masaalixdiisa iyo dantiisa ku jirtaa inta aan la gaarin qofkii dhintay iyo dadka ka dambeeyay intaba marka ilaahay subxaana wa tacaala intii dhimatay ha u naxariisto maxaa la yiraahdaa xagga de maxkamadaha iyo cadaaladda iyana waxay u tahay ummadda dhan noloshooda ku xiran maxkamadaha hadba siday u shaqeeyaan ay ku xiran tahay insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ama ka baryaynaa inuu cadaaladda waafajiyo iyagana marxuumka walaalkiis ayaa isna nala hadlay walaalkay waa iga yaraan waa ka maxkamadda waa ku qanacsanaa xukunka ay fulisay waana ku qanacsanaa diilayran maya in loo dilo sharciga loo mariyo ku qanacsanaa waa ka aabahay dhaladii isku aabaan asoo 27 jir waay 27 jir waa ka waa ku qanacsanaa si fiican ugu qanacsanaa diilayran cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.